you have been following this case, you will know that we had a preliminary objection to the ICJ listening. haddii aad la socotay kiiskan waxaanu soo jeedinay inaanay maxkamadda ICJ dhagaysanin waayo xeerka ICJ waxa uu dhigayaa waa in labada dhinacba kiiskooda ay soo gudbiyaan waxaanu aaminsanahay inaanay sharciyad u lahayn kiiskan inay xukunto waayo wali maanu marin jidadkii kale ee furaa si loo xaliyo khilaafkan Soomaaliya idoon cid kaleba la hadal ayay markiiba maxkamad tagtay oo ah halkii ugu dambeysay ma aaminsan inay tani u keenayso xal waara mushkiladan waxaa jirta sheeko la isugu sheekeeyo oo ah in Soomaaliya ay kiis adag leedahay annagu taa ma qabno kiis dhan walba ka adag ayaanu haysanaa ma rabase inaan ka hordhaco waxa ay maxkamaddu oran doonto very strong case both in terms of precedents and in terms of practice in international law. But I do not want to predetermine what the court will say. Kenya's position on the status of Somaliland. mowqifka Kenya ee Somaliland waxa uu la mid yahay kan midowga Afrika waan ixtiraamsanahay xuduudaha Afrika sida ku xusan go'aankii midowga Afrika ee 1964 dana ayaan ka leenahay dalal badan ka hor inta aysan dal noqon Suudaanta Koonfureed wakiilo ayaa Kenya u joogay dal caynkaas ah ayaan nahay dalal badan ayaan wakiilo ku leenahay taasi ma waxay ka dhigan tahay waa inaan la macaamilin dadka waa la macaamilaynaa nationalities. Does that mean that we should not engage with people we do?